tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed dalkaasi iyo geeska Afrikaba waxaa ka dhacay isbedelo badan deegaanka Soomaalida kama uusan badbaadin isbedeladaasi waxaa iscasilay madaxweynihii deegaanka Cabdi Maxamed Cumar xilkana waxaa si ku meel gaar ah loogu wareejiyay wasiirkii macdanta iyo biyaha oo horey u ahaa wasiir maaliyadeed Axmed Cabdi Maxamed waxaa xigay in caasimadda gobolka ee Jigjiga ay soo galeen ciidamada federaalka inta aysan madaxweynihii hore ka kaxaysana khalalaaso iyo amni darro ayaa magaalada Jigjiga dhexdeeda ka bilowday sida ay VOA-da u sheegeen mas'uuliyiinta deegaankana 29 ruux ayaa lagu dilay rabshadahaasi bangi iyo ganacsiyo magaalada dhexdeeda ahna waa la boobay intaasi waxaa dheer rabshadihii ka socday xuduudaha Soomaalida iyo Oromada ay wadaagaan iyo weliba Soomaalida ku dhex nool Oromada oo amnigoodu uusan sugnayn barnaamijkan gaarka ah waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan bulshada deegaanka iyo sida looga samata bixi karo xilligan kala guurka ah balse marka hore aan isla eegna xaalka gobolka ee xaadirkan iyo cidda ay yihiin kooxaha hoggaanka deegaanka isku hardinaya ee u suxul duubayo in ay hantiyaan waxaa iigu marti ah oo inoo falanqeynaya arrimahaasi barasare Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Shiine oo cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Jigjiga isla Jigjiga ayuu qadka telefoonka uga jiraa Dr. Cabdiraxmaan Cawaale Xasan waa gudoomiyaha ururka aqoon-yahanka deegaanka London oo deegaankiisa ayuu ku sugan yahay aqoon-yahan Maxamed Aadan Dubad waa xogayaha hay'adda Oscar oo u adeegta bulshada Soogalootiga ee gobolka Alberta ee dalka Canada waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahaniinta deegaankaasi Edmonton ayuu joogaa dhammaantiin ku soo dhawaada VOA aan ku bilowno aragtidiina maxaad ku tilmaami kartaan xaalka hadda uu gobolka deegaanka Soomaalida ku jiro bismillah waxaan leeyahay anigu hadda deegaankii waan joogaa meel aad u hooseyso oo jiidasho ah laga soo noqon kara buu wadada deegaanku hadda joogaa labada oo loo sii adkeeyo iyo isku dubarid iyo in loogu soo yeelo lagu soo jiido xaggan labada ayuu deegaankii joogaa meel uu kasoo kaban karayo oo hadda xabad ka dhacaysa ayna jirin ilaase shaqaaqadii ay keentay anfariis fara badan iyo kala carar iyo qaxitaan aad ayaad u mahadsan tahay barasare Axmed Shiine Maxamed Aadan Dubad deegaanka waxa hadda uu maraya waxa weeye hadan aragtidayda cabiro in uu dhacay kala goonaan xagga maamulkii ka jeedin jiray magaalada ama gobolka in si degdeg ah ay xukunkii looga qaaday sababtii doontaa ku dhacdo guddiga fulinta maamulka madaxweynihii ay magacaabeen ku meel gaarka ah in isaguna xaaladii ay noqotay mid aan hubaal ahayn inay jiraan xoogag siyaasi ah oo diidanaa maamulka iyo kuwo gobonnimo doon ah oo masiirka ummadaasi muddo dheer raadinayay in halka maanta ay wax taagan yihiin ay tahay hubaal la-aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta ayna tahay in hubaal la-aantaas siyaasadeed ee dadka deegaanka si midnimo ah ay uga wada shaqeeyaan iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horeyna looga wado halkaa inay taagan tahay waan hadda u haystaa Dr. Cabdiraxmaan Cawaale Xasan waxay ila tahay deegaanku saan ognahay wuxuu soo maray maalmihii lasoo dhaafay culays aad fara badan baa soo saarmay dadkii cabsi fara badan rabshado fara badan baa ka dhacay dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay laakiin markii laga soo gudbay intaas waxaan ognahay in uu ku jiro xaalad aan deganayn oo 100% aan sidii hore aysan ahayn weli ay dadku dhegta u taagan tahay ay dadku filayaan yani xaalad kasta in wax walba u dhici karo laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inuu is-afgarad fiican meesha kasoo baxo waayahay rajada halkeeda ha joogto Dr. Cabdiraxmaan uu sheegay halse ahaatee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qaybihiisa dambe sida lagu gaari karo xal ummadda u cuntama haddii aad ku qeexdeen xaaladda gobolka uu hadda ku sugan yahay sawirka aad tilmaanteen saddexdiinaba su-aasha la isweydiin karaa waxa weeye waa ayo dadka ku mashquulsan ama ururada hortaagan bulshada ee hadda doonayo in ay isbeddelka ka dhashay Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida ay ku qotomiyaan tub wanaagsan aan weydiiyo Maxamed Aadan Dubad inuu wax nagala wadaago guud ahaan tirada iyo inta ugu tugtugroon malihiisa intaan ka ogahay waxa weeye waxaa jiray dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo uu mas'uul ka yahay madaxweynaha hadda xilka ka tagay Cabdi Maxamed Cumar sidoo kale waxaa jira ururka ONLF oo National Liberation Front oo u dhaqdhaqaaqay u dagaalama dadka deegaanka degan inay xorriyad gaaraan waxaa jira aqoon-yahan iyo dhalinyaro ka hortimid kana gadooday maamulkii meesha ka jiray
oo la baxay magacyo kala duwan sida Siraaj, Dulmadiid iyo kuwo kaloo laga yaabo inay ka dahsoon yihiin. Waxaa jira maamulkii deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia dhalinyaradii ka shaqeynaysay oo madaxweynahoodii xilka ka tagay oo ruuxoodu guddigii fulinta iyo golihii dhexe iyo maamulkii iyo systemkii oo jira. Marka waxa weeye haddii aynu eegno ururada ama shakhsiyaalka ama dhinacyada ku hardamaya waxay almost ila muuqdaan inay yihiin ilaa 4 group oo kala aragtiyo duwan, kala saacada kusoo kala horeeyay fikradahooda sida mushkiladda lagu xalinaya laga yaabo inay ku kala duwan yihiin. waayahay waan u imaanaynaa ku celiyo Dr. Cabdiraxmaan Cawaale gudoomiyaha ururka aqoon-yahanka deegaanka. Dr. Cabdiraxmaan, inta uu sheegay Maxamed Aadan Dubad maxaad ku dari lahayd? markaan kasoo nimaadno kuwii hore ma garanaysaa ayaa waktigoodii uu aada loo soo dhaafay. waxaa hadda saaxada maanta ku jiray waa intaa uu sheegay markii lagu daro UWSLF oo ah urur muxuu ahaa isaguna ka dagaalami jiray oo yacni markii hore nabadda qaatay laakiin hadda ka mid ah muxuu ahaayey dadka saaxada jooga ee shirkii dirdhaba lagu qabsanayayna ka mid ahaa oo muxuu ahaayey Dulmadiid. aad baad u mahadsan tahay Barasare Axmed Shiine. haddii aadan tiro kale iyo magacyo ku daraynin, iyana waxaa la sheegaa inay jiraan shakhsiyaad xoog ku leh siyaasadda deegaanka oo gacan saar in ay la leeyihiin la tilmaamo dowladda dhexe ee Ethiopia iyo ururo caalami ah. intee in la-eg ayaad miisaankooda ku tilmaami lahayd? anigu waxaan tusaaleynayaa 93 iyo 4 markii ay EPRDF dowladda Ethiopia ay ku guuleysatay ee qabatay diyadii meesha yimid inay dowladda dadka Soomaalida oo dhibaato badan ku dhacday waxyaabaha ay la talaaba qaadi waayeen ahayd inay 100 urur la yimaadaan markii hal midnimo oo horumar ay ku sameeyaan la doonayay iyo akhlaaqada iyo midnimo la'aanta uu soo maray in ururo badan la sheego aad uga aan helayo maadaama aan goobjoog walaha oo deegaankana joogay kana dhashay. ifafaalaha iyo odaras aqoon iyo waayo aragnimo ku salaysan waxaad ku dhageysan doontaan qaybaha dambe ee warbixinteen.